tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay Soomaaliya u jihaysatay dhanka horumarka oo ay ka soo kabanayso colaadihii ragaadiyay muddo rubac qarniya waxaa dalka laga dareemayaa isbedel taaba qaaday kaasoo soo jiidanaya indhaha kumanaan ruux oo dib ugu soo laabanaya goobihii ay saban hore ka carareen amni darrada ka jirta awgeed magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose isla markaana xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Jubbaland ayaa jeer hore ahayd meel dagaal sokeeye ay ka socdeen balse muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka jireen hanaqaad wanaagsan oo dhinaca horumarka ku salaysan hase yeeshee colaadihii ahliga ahaa waxa ay saameyn ku yeesheen ama niyad weyn ku rideen kumanaan muwaadiniin oo waxay safka hore uga jirtay deegaanada laga soo warin jiray colaadaha iyo burburka hadda waa mid taasi ka bedelan oo waxaa si weyn ku soo jiidanaya sida ay ula taaba qaadayso dhismooyinka casriga oo Soomaaliya hadda laga sameynayo halkani waa garoonka loogu talagalay in lagu ciyaaro kubadda cagta waana mid ka bedelan goobaha baratanka ciyaaraha ee ka jira magaalada Kismaayo waxaana loo sameynayaa caws macmal ah xaydaab dadka gudboon oo loogu talagalay in aanay dadka u soo galin gudaha garoonka hase yeeshee maxaa keenay in iminka la dhiso aadan cabdi faarax waa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee gobolka Jubbada Hoose oo eesteen u waramay ayaa ka warbixiyay xaaladihii kala duwanaa ee garoonkan uu soo maray dhismaha garoonkani muddo ayuu projectkiisa u xareysnaa sida oo la socoto waxaa nasiib u yeelatay hay'adda ARC oo iyadu saldhigeedu yahay gobolka Jubbada Hoose projectkan oo lagu qiyaasay inuu soconayo muddo 3 bilood laakiin ay waxay noo sheegeen inay ku dhameyn doonaan 2 bilood oo qudha waa project dhow oo qorshihiisuna uu yahay qorshe 2 bilood ku kooban kaliya waxay noo sheegeen inay noo dhiganayaan rooga iyo siliga dadweynaha daawashada u imaado garoonka kala hagayo ama kala celinayo anaguna waxay noo tahay fursad qaali ah maadaama aanu hayninba roog iyo maxaa loo jiray iyo shacabkii iyo dadweynuhu iyo dadka ciyaaraya in muddaba ay isku rafaasanaayeen nasiib weyn ama farxad weyn ay noo tahay waana soo dhaweynaa hay'adaasi ay noo sameynayso projectiga noogu diyaarisay inay nagu horumariso sportska ee Jubbaland maadaama ciyaarihii maamul goboleedyada lagu qabtay caasimadda Muqdisho annaguna aan soo qaadan wasiirkeenuna uu soo qaato in marka xiga lagu qaban doono Jubbaland xaruntiisa Kismaayo nasiibna aan u yeelanay isku aadkaasi wasiirka uu soo qaatay anagoo roog loo dhigno faa'iido weyn bay noo tahay waxaan rajaynaynaa sanadka dambe nagu soo aadan in lagu qaban doono Jubbaland xaruntiisa Kismaayo nasiib ayaan u yeelanay wax badan bay ka bedeli doontaa sportska Jubbaland waa markii uu horeeyay maamul goboleedyada lagu qabto xarumaha kamid ah xarumaha Jubbaland goboleedyada marka waan soo dhaweynaynaa waana u diyaar garooweynaa diyaarna u nahay Jubbaland wax weyn bay ka bedeli doontaa sportskiisa qaabaha kala duwan afar 20 sano ee dagaaladu ahliga ay ka jireen gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada tan Kismaayo ayaan wax dayactir ah u sahelin garoonka weyn ee kubadda cagta ee magaalada Kismaayo balse muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxa dadaal adag ay ugu jirtaa dowlad goboleedka Jubbaland sidii ay ula jaan qaadi lahaa garoonkani kuwa ku yaala gudaha dalka Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka